sidee Turkiga oo horey hubka uga soo iibsan jiray dalalka kale ee adduunka uu ka mid noqday dalalka isagu iibiya isla markaana bixiya adeegyada difaaca militariga. 5 ka mid ah shirkadaha soo saara qalabka difaaca ee Turkiga ayaa ka mid ahaa 100 shirkadood ee ugu horeeya adduunka ee soo saara hubka bixiyana adeegyada saanada militari. Macadka cilmi baadhista nabadda ee Stockholm ayaa soo saaray qiimeyn lagu sameeyay 100 shirkadood ee ugu sarreeya ee bixiya qalabka difaaca iyo adeegga militari ee ugu wanaagsan dunida. Qiimeyntan oo ku saleysan dakhliga shirkadda Turkiga ee Eslen ayaa ku jirta kaalinta 52aad, halka Baykarna ay ku jirto kaalinta 66aad, iyo sidoo kale warshadaha aerospace ee laga leeyahay dalka Turkiga oo iyaguna ku jira liiska 57aad ee qiimeynta dunida. Shirkadda warshadaha iyo kiimikada ayaa ku jirta kaalinta 93aad ee qiimeyntani. Ku darista shirkadaha Turkiga ee qiimeyntan ugu dambeysay ee ay soo saartay Macadka cilmi baadhista nabadda ee Stockholm ayaa muujinaysa in warshadaha difaaca ee Turkigu ay sii kordhayaan isla markaana saameynta Turkiga ee ganacsiga hubka ay tahay mid si xawli ah u kordhaysa. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in horumarka dhanka difaaca uu muujinayo saameynta sii kordhaysa ee Turkiga uu ku leeyahay caalamka, gaar ahaan Bariga Dhexe. Safar ka soo bilowday soo iibsiga ilaa iyo iibinta qalabka difaaca dalka Turkiga oo lagu tirin jiray inuu yahay waddan hubka ka iibsada caalamka, balse hadda kadib horumarinta warshadaha qalabka difaaca ee Turkiga ayaa u muuqda kuwa iyagu hadda bixinaya adeegyada militari iyo saanadaha difaaca. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay qalabka difaaca ee Turkigu sameeyay wuxuu ciyaarayay door isbedel leh intii lagu guda jiray iska horimaadyada kala duwan. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu sameeyay ayaa door muhiim ah ka qaatay colaadaha ka socda Ukraine, Suuriya, Liibiya iyo wadamo kale oo caalamka ah. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in 80% ay daboolayaan baahidooda difaaca gudaha, waana sababta ay Turkigu u iibsadaan hub ka yar dalalka kale ee caalamka. Kadib markii la aasaasay hannaanka isku filnaanshiyaha markii Mareykanku uu ka qaaday cunaqabatayntii hubka ee saarnayd waddanka Turkiga, Turkigu waxa uu ka soo iibsaday Mareykanka diyaaradaha loo yaqaano F-35 ee dagaalka iyo nidaamka difaaca hawada ee loo yaqaano S-400 ee uu sameeyay waddanka Ruushka. Qalabka difaaca ee Turkiga uu dhoofiyo ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee fudud ee lagu sameeyay gudaha waddanka Turkiga, diyaaradaha qumaatiga u kaca, gawaadhida gaashaaman, rasaas iyo hababka gantaalada. Iyadoo xiisaha caalamiga ah ee qalabka militariga Turkigu uu kordhayo, haddana dakhliga dhoofinta difaaca ee Ankara ayaa sidoo kale sii kordhayay. Sanadkii 2014 waaxda wax soo saarka gaashaandhigga dakhligeedu waxa uu ahaa 1.64 bilyan oo doolarka dalka Mareykanka ah, taasoo hadda kor u dhaaftay in ka badan 7 bilyan oo doolarka dalka Mareykanka ah kadib qiimeyntii la sameeyay sanadii 2024. Turkiga, mas'uuliyiinta iyo warbaahinta dowladda ayaa si isa soo taraysa u dhiirigelinaya inay kordhiyaan isku filnaanta waaxda difaaca ee dalka Turkiga. Tani waxay sidoo kale udub dhexaad u tahay ololaha siyaasadeed ee madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan.